الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إن شاء الله تعالى كلمة ما أنت ربنا كارلو مدة امتحانها هيد قيبتي اللحاد إن تنفليها وها مدة نقول لنا إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا دقرت أعداد مرة بيوم ملاجان إسلامك تاو نقول تلقلنا وعي جراد كغفك مسلم كإنكر له وقاضو سيادو فهمت لنك لجاسو قليو وحرب مانتنا إن شاء الله تعالى عن كهذا النقيبته ورباهنتو أي كجشيء بادينته أمده قيبته ورباهنتو وأنا سلايا وقيبته أقدر مانتا حق تشويشك إيوه اسكو خالد حق إيه باطلك إيوه يعني dadka oo loo macaaneeyo taswiiq an-nifaaq waxa la yiraahdo nifaaq munaafiqnimada oo la macaaneeyo oo ilbaxnimo laga dhigo kufrigi laftigiisa oo dadka laga dhigo waxaan dhibaato lahayn waxa soo dhan warbaahintu qaybaha ay ku leedahay aad bay u qoto dheertaa laakiin bal kalimadii labaan rabana isla eegno insha Allah taala warbaahintu waxaad ogtihiin walaalayaal maanta waa aalad aad u xoog badan weey maxaa yeelay casrigii hore ama zamankii nabiga wixii ka dambeeyay heerkan ma jirin ana meesha ugu badan warbaahintu waa waraaq la isku qoray ahaan jirtay ama qof inta dadka soo hor istaaga la hadlo oo fariintiisa gobolada loo kala qaado laakiin maanta waxay maraysaa warbaahin casriya oo ilbiriqsi caalamka oo dhan wixii dhacay ay ku gaarayaan oo wax walba si fudud haddana inta la fududeeyo gurigaaga gudihiisa adoo ku jira bal qolkaaga adoo ku jira waxa doonto adduunyada aad ka daawan karto waa meesha u dambeysay weeye oo ay gaartay waxaan loo yaqaano sanaacada casriga xagga warbaahinta ama se internetka qaybta ay ku leeyihiin marka baadiyeenta ummadan saad ogtihiin ba horta ummaddu asal ahaan mar hore dhibkii diinka laga laabtay ilaa in yaro ilaahay badbaadiye mooye ummaddu qarniyo fara badan ayaa diinkii laga laabto magacii baa haray caalam islaami laakiin caqiida ahaan iyo dhaqan ahaan waa hore laga tagay ilaa in yaro ilaahay badbaadiye mooye subxaanahu wa tacaala waxaan rabaa marka inaan qiso yar kaga warramo oo Hadi Shacraawi gabar la yiraahdo oo masaari ahayd oo fanaanad ahayd fanaaniinta mumathiliinta aflaanta matala aktarada loo yaqaano kuwan gabyaaga la yiraahdo iyo iyaguna suugaan yahanada ah waxyaabahaas oo dhan qayb weyn bay ku leeyihiin haday toosan yihiin waa toosne fanaan ma toose laakiin gabyaagu waa toosaad gabyaa fiican baa la helaa marka luminta u badan yihiin shayaatiinta aad ugu shaqeysata kuwaas waxayna heli og yihiin dadka qulubtooda dumi og yihiin dadka gabayga iyo dadka heesaha iyo dadka waxa la yiraahdo sameeya mumathil yani actingka aflaanta matala rag iyo dumarba waxaa jirta koox Faransiisa oo u bixisay barnaamij bay soo saareen qarnigan hadda aan dhamaaday dhaxdhaxdiis lagu jiray xilligii Anwar Saadaad aan filayay inay tahay Masar qolada Faransiiska joogtay waxay soo diyaarisay barnaamij la yiraahdo tahriir al-mar'ati al-muslima xoreynta gabadha muslimada yaa laga xoreynaya islaam iyo ilaahay subhanahu wa ta'ala barnaamijkaas marka ay sameeyeen wadamadii waxay la tageen Turkiya iyo Masar Turkiya marka Almaaniyada iska haysatay oo in la qaawanaado caadi bay iska ahayd laba Almaani bay si kale Masarada Almaaniya ka jirta haween xijaaban iyo dad diinta akhriya iyo ay lahaayeen laakiin Turkigu sida ma ahayn Turkiga markii uu qabsaday bilowgii qarniga hadda dhamaaday 19aad bilowgiisii markii uu qabsaday Ataturk ninkii la oran jiray ee dawladda Uthmaaniyiinta ee Suufiyada islaamka sheeganaysa meesha laga saaray waxa burburay dhamaan waxyaabo u adeegayay magaca islaamka hatta wuxuu diiday koofiyadii guduudneyd ee qalanuuska loo yaqaanay ee dawladda Uthmaaniyiinta ay xiran jireen masaajidadii wuxuu u bedelay bakhaaro iyo xarumo ciidamadu degaan ama kaydka ciidamada la dhigto iska dhaaf qof kale oo shacair islaam muujinaya aadaankii wuxuu amray in afka lagu adimo Turkiga
afka turkigana qur-aanka lagu akriyo suurtagalna maaha. dad fara badan lagu xasuuqay oo dee culimo ahaa wixii diinba lagu malayn karay. marka turkiya ayadu farahay ka baxday oo si fiican bay iskaga qaawanayd oo calmaaniyadda maalin loo istaagaa jirta, ilaa hadda waa jirtaa inkastoo sii daciifayso, ilaa hadda waa jirtaa. maalintii Kamaal Ataturk ninka la yidhahdo dhulku qabsaday Masar, Turkiya, maalin loo istaago la xusaa jirta. sanamkiisoo weyn ayaa magaalada Istanbul dhexdeeda ka taagan. idan marka waxay ku soo hormareen turkiya fanaaniin heese ka soo dhigeen, musig bay ka soo tumeen, gabdho qaaqaawan baa dadka la hor keenayaa, qaawanaantii baa lagu heesayaa. mar haddii la rabo saxaabada nabiga magacyadooda la sheegsheegayaa. waxaa loogu talagalay in dadka la tuso noocan ma ah in xorriyad taama laga gaaro wixii diin la oran jiray, laga xoroobo islaamnimada. masar bay yimaadeen. masar way adagtaa marka, waa xarun oo cariiq ah oo dad badan oo diinta jeceli joogaan. masaarida marka waa meelihii islaamkuna mar xooga ku lahaa waay, oo meeshii laga xoreeyay baytulmaqdis waa masar. caynu jaalud meeshii lagu jebiyey tataarka waa masar. marka waxay leeyihiin jaamacado, kuliyado, yacni dad badan oo dakaatiro ah. haween badan baana ka xijaaban, macaa suufiya xijaaban, qabuuriye ah ayaa qaarkood xijaaban, oo xijaabkeenaan oo kale aan ahayn jaakado waaweyn iyo waxun gashada wax isku astura. marka gabadhan waxay samaysay Hadi Shacraawi, waxaa dhalay baan filayaa suufigii weynaa ee Shacraawi la oran jiray. magacaan arkayno isagoo dhalan raja, maadaama isagoo dee waxaas waa soo dhaweynaya. gabadhaas dekeda magaalada Ismaaciiliya ayaa ka soo degeen fanaaniintii France ka timid oo waday barnaamijka la yiraahdo xoreynta gabadha muslimadda ah, laga xoreynayo diinka islaamka. ilaahay baa amray, amarka ilaahay laga xoreynayo macnaha inay ka xorowdo la rabo. marka xijaab beebeel inta soo qaadatay markay dekeda timid, warbaahintii wada daawanayso la duubayo ayay iska soo saasiga daliiqday. waxaa la gaaray bay tiri xilligii gabadha Masar ay xoroobi lahayd dii xijaabka tuurto. waxaa laga dhigay halku dhig weyn. la wadanka calmaaniyiin baa haysta, waxba uma arkaan waxaas. culamo baa qaylqayliso xoogaa mooye, yacni fandhig baa laga dhigay. qofti waxaa laga dhigay road model, wax lagu daydo oo aqoon-yahan ilbaxa. reer galbeedkiina waa sii buunbuuniyeen. tvya la furay, fikirka liberiyada wax laga ka hadlaya, yacni liberalismka waxaa la yihahdaa xoroobidda xagga maskaxda ah, laga xoroobayo quyuud wax ku hayaba inaanu jirin oo aada xor tahay, hore iskaga soco. islaamku wuxuu ka xoreeyaa dadka quyuudda jaahiliga ah, yacni xarga jaahili inay kugu xiran yihiin ciid, wadan, calan, qabiil, tol, qabri, geed, dhagax, madhab, waxaasuu furaa islaamku. ilaahay baad u xoroobaysaa keligii. iyadu tii bedelkeeda wadaan, waxay yidhahdeen ilaahayna ka xorow, wixii kalena ka xorow. liberalism baa la yihahdaa. fikirkaasu aada buu u shaqeeyay. fanaaniin badan baa qaadatay, reeriyooda la geliyey, tvya loo furay. si fiican buu Masar uga hergalay. markuu hergalan wadamadii kalea loo qaaday sida Libiya, Jazaa'ir, Tunisia, Morocco, dhul badan baa la geeyey. oo yacni haweenka haddii dee suuqa loo soo bixiyo gabadhu dabagaab qaadato oo xijaabka la iska tuuro, meelaha ummadda laga fasahaadin kara waayo, aada u fudud. ummadda hadday saa u wada qaawan tahay oo zinada iyo faaxishada ay caal noqoto, oo ikhtilaaq isdhexgalka ragga iyo dumarka uu noqdo iska caadi, waxaa halkaa ku burburaya qiyamka islaamiga. waa qeybaha warbaahintu ay ka qaadato weeye la dagaalanka islaamka ama la dagaalanka caqiidada saliimka ah. waxaa kaloo jira qeyb kale oo culammada reer galbeedku mufakiriinta la yihahdo diyaariyeen. nimanku waxay leeyihiin niman fariista oo ka fikira mustaqbalka, oo siday ku burburin lahayn islaamka. nin walba laleeyahay fikirkeen, jaamacadaha laga soo wadayaa, aqoon-yahanaa la isu keenayaa, seminaaraha loo qabanayaa, bil iyo 2 bilood baa meel cagaara la dejinayaa. nin walba tasiilaadka u baahan yahayna waa la siinaya. keliya waxaa la rabaa maskaxdiisa in la miiro si looga helo maxay fikir u shaqeynaya yuhuudda iyo nasaarada oo lagu burburin karo islaamka. fikradda la yidhaahdo wixdat aladyaan
ayaa la keenay. ibnu baaz oo nool xilligii khaalid boqor faysal, boqor faysalka sacuudiga joogana aad buu uga duwanaa waxaan kale caalam alislaami joogay. waa nin ka fiican buu ahaa, ka diin wanaagsan, mabda' leh, mujaahid a la oran karaa. xataa baytulmaqdis inuu dagaal u aada u dabcay garab buu waayay 1969 markii la gubay masjid al aqsa. faysal baa la yihahdaa 75 dhintaan rajeynaya la dilay ama 74 midkood. wiiloo adeeru yahay way usoo adeegsadeen gaaladoo dilay. waa ninkii shidaalka reer galbeedka oo dhan ka joojiyey. maxaan shidaalka idiin soo daynayaa buu yidhi markaad yuhuudda ka daysaan taageerada. nin saas caraba u hadli kara, carab ula hadli jiray ma jiro. marka iyaguna waa u ikhtiyaa, wiil bay u diyaariyeen, wiilkaasaa toogtay, isagana waa la dilay. ilaa hadda wiilkaas ciddii soo armaaraysa lama yaqaan, soo qorshaysa. marka waxaa dhacday xilligaas uu joogay boqor faysal oo uu joogay sheekh ibnu baaz ayay qorshahaas keeneen. waxay yidhahdeen waxaan sameynaynaa xaflad weyn oo diinta islaamka iyo diinta kiristanka la isugu soo dhaweynayo. diinta islaamka iyo diinta kiristanka la isugu soo dhaweynayo. xaflad iyo diinta yahuudiyadda waa midan hadda socotay ee abudabay la dejiyey. laakiin markaa fikirkeedaa bilaabanayay mufakiriinta reer galbeedka yuhuudda iyo kiristankaana keenay. oo waxaa keliya lagu hanan karo waxaa in buqdiga iyo carada laga saaraa, dadka islaamka u nasab sheegto oo markaa laga fogeeya inayna nacaan yuhuudda iyo nasaarada inay nacaan. waa in laga fogeeya, waa in la keenaa culamo muslimiina, baadariyaal kiristaana iyo xaaqaano niman la yihahdo oo yahuuda. xaggee lagu qabanayaa baa la yidhi shirka. bal fiiri shirka si la isugu duleystay. waxaa lagu qabanayaa magaalada qurtuba, waa magaaladii andalus oo islaamka laga xoray muslimiintu haysan jireen oo gaalada ka xoreystay qabsadeen. ha ahaatee magaalada waxaa lagu qabanayaa masaajidka ugu weyn gudihiis. masaajidka qurtuba ku yaal dhulkii andalus ayaa lagu qabanayaa shirka. marka lagu qabtana haddana masaajidkii gudihiisa marka lagu qabta kiristaanka yuhuudda isugu imanayaan. meeshii anagu shalay aan maamulayna kitaabka ilaahay lagu maamulaya maanta gaala intay isugu timaado yaa waxaa lagaaga saxiixayaa weliba inaad la midowday iyagii masaajidka dhexdiisii waay. ibnu baas baa noolaa alxamdulillah arrintaa inkiray. muxaadaro weyn buu ka diyaariyey, khayr allah siiyo. oo wuxuu yidhi laa ukhuwata fi lislaami laa ukhuwata bayna almuslimiina waalkaafiriin. muxaadaro weyn faysalna waa ku taageeray. wax aaday baa yaraaday oo lama aadinba, waa fashilmay. sheikaasaa xaramka ka jeediyey muxaadarada. dowladdii sacuudigana waa ku garab istaagtay, khaliijkii kale waa ku raaceen. nin u dhuumanaya mooy de shirki wax aadaa la waayo. suufiya hadduu aadi lahaa keligiis waay. waa jireen suufiya masaari oo damca inay aadaan laakiin ma aadin, maadaama xaramkii laga inkiray. masr hadday aado waxba ma bedeleyso, waxba ma bedeleyso. suufiyadana masaarida aabbo ah. arrintaas alxamdulilaahi dhankaas markaa waa la fashiliyey. laakiin ibnu baas waa dhintay waktiga kadib. ibnu baas markuu dhintay muftiyaal kale yimid, boqor faysalna waa dhintay. raggii cadaadkaa ee derbigaa markay meesha ka baxeen waxaa yimid fahad iyo mufti kale oo fahad xilligiisa la yimid. maxaa hirgalay markaas? barnaamijkii ay gaaladu waday, reer galbeedka yuhuudda ay wadeen, in dib loo dhigo, loo abaabulo wixdat aladyaan asamaawiya, midaynta diimaha samaawiga ah ee isugu taga barnaamijka la yihaahdo micnaha ee isugu wada rumaysan nabiyullaahi ibraahim. nabiyullaahi ibraahim wada rumaysan, ama ibraahimiyada loo yaqaan, ibraahimiya, ama ayagoo u yaqaanaan abrahamic faith, abrahamic faith oo laga wado caqiidatu ibraahimiya. nabi ibraahimna yahuudina ma ahayn, nasraanina ma ahayn, beri buu ka yahay calayhi salaatu wasalaam. alla wuxuu yidhi maa kaana ibraahimu yahuudiyan walaa nasraaniyan walaakin kaana xaniifan musliman wamaa kaana min almushrikiin. nebi ibraahim yahuudina ma ahayn, nasraanina ma ahayn, laakiin wuxuu ahaa xaniif muslim oo toosan, mushrikiinta ilaahay keyrkii caabudana kuma jirna beri buu ka ahaa. marka nebi ibraahim muslim buu ahaa. in yahuudi marka nebi ibraahim nagu soo gaado, nasaaradina sidoo kale la yidhahdo fikirkaasaan isugu tagana, waa gaalnimo cusub oo loo bareerayo. nebi maxamed nin inkirsan inuu nebi ibraahim kugu beer laxawsada ka war. nebi ciise iyo nebi maxamed nin inkirsan waa yahuudiga.
نصراني قلنا محمد بن كرسانية يهودي قلنا عيسى محمد وإن كرسانية عليهم السلام إمرك النبي إبراهيم يقبر لحوصه وتكتيك عصبولي وحي إلى فكرة عقلية كانن وحي إلى الدنيا الله بيوقع بسم دون تمردو عالم أود بدنا وثنيين صنم كلا عابد شينو هركعيو وهندي وكوحيو شينا هندي كلي أنا قوده كليو أو يكون جيران ودمada kale asnaamta caabudo sida Thailand Vietnam Cambodia waxaas oo dhan ay kamid yihiin wathaniinta loo yaqaan quwadda soo baxaysa yiraahdeen marka ay soo socota quwadda ka hortagi karta waa in la helo diin samaawi dad rumaysan markaas xataa qofkii aqlaaniga ah ee aqeedo lahayn laakiin aqliga laga dhaadhiciyo leeyahay sanamka kuwa caabudaya kuwa ilaahay kaliya yaqaanay kitaabada rumaysan inay isku hor yimaadaan laba garab noqdo waa macquula logic waa ku dhig logic ma aha inaan diin samayno xilifka waa baab gaar gaashaanbuurta dagaalka la wada gelay laakiin diin la sameeyo cusub oo la yiraahdo wayna midaynaysaa kitaabkeedii lagu mashquulsan hadda la dhigaya kitaabkaas qayb kamid ah waa quraan qayb kamid ah waxa la geliyay bible injiil qayb kamid ah bible kan tawraat qayb inta ka soo qaamay bible u bixiyeen old testament la yiraahdo injiilna qayb ka soo bixiyeen new testament loo yaqaan quraan bay hadda ku dareen marka أول بايبل بيسميه بايبل كم مجرى كتاب إلهي معها كتاب إلهي إنجيل بقى هي توراة إنجيل سيال بقول سنة أود حيسا هل كتاب أنا لا يدري في رخي أنا كجرت وهبك اللغة أنتي كريستنك يهودا أو فكرتي هل كتاب سوق كان وحنا أبحيان كتاب المقدس مركو عربي هاي إنجليش كانوا حلوين هذا هولي بايبل محل أبحي بايبل كي بركة سنا وحاسوقتي إنجيل أو قريب لقديجي التوراة هل كتاب لقديجي مركز واحد لو كان بيحكي Old Testament يا New Testament بلاقي في العهد القديم يا عهد الجديد بلا بيحكي بس قيبتها حي كلها نبي موسى قصة قيبتها النبي عيسى نبي عيسى سنة بقول سنة ولا عيسى هذا وحال لو ذا مركز نبي موسى النبي عيسى النبي محمد صدق هذه كتاب وقصة دقي إن اسكمال السوق كان آيات جارة لصوح ولوي وحي قال يسينا ولا قريبية لا قرآن كم معاكو يالا لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة بوكا يسمينا إبراهيم إذا كما صدر يعني لا يقول قال يسينا يعني وحكى له القرآن كأنه يعني وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنها يؤفكون كما درى يعني آيات يهود واحد عزير وابن الله النصارى واحد المسيح وابن الله يجوا كودا يعني قالوا هراء وركض يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله إله ولا عنذي ولا قد سيبي يا مرك لقوا ما درى وحي تاريخه واسكوا فقسين تاريخ ذكر الرئيسي نبي عيسى كلا حلقي نبي محمد نبي موسى صباحي حلقي فرعون حلقي كسيه الرئي نبي الله موسى إبراهيم نبي إبراهيم نمرود وحي كور نبي نوح أن تاريخ أبو رثاك نبي آدم وحيابه كم يدسين بسوق كينيان كل مقع بين أبحين دونان بوقا يسمينا يان مقع بين أبحين يان قبلة دي ولا سمي والقبلة الله سمي سنة يكورون قبلة وحالة قد مقالة أبو دبي مساجد يا كنيسة يو بالكان لي بيعض يهود ولا اسكو در اسكو قابو سمي سوي habkii loo tukan laayay imaamku soo noqon lahaa wala iska raba ma iyadoo la taagan yahay waa si yahuud madaxa saar la dhihi masasida kristaanka inta jilbaha dhulka la dhigaa indhaha la isku qabano saas gacmaha loo taagtaagi masasida muslimiinta inta la istaaga la rukuuca la sujuudi see loo tukan salaadii bay sameynayaan hadana waa diin samaysa balka warama kufrino inta gaarsiisan waxa horkacayana waa culimo laba culimaana uga caansan xagga caalamka islaamka kuwa ku jira صوفية كوات هركع وحال يرادا حبيب الجفري لعنة الله عليه حبيب الجفري وانك كوات ugu horeeyo barnaamijka loo wado وصوفي وانك ku dooday حتى awliyadu waxay awood u leedahay ilmaha inay caloosha hooyada ku abuurto سبحان الله وكفر عدوي wuxuu ku doodaa oo TV-yada baraha bulshada yaal anigu waan jecelahay yahuud isagoo leh Soomaaliya arag markaasuu la meelay yaabtay waan ku celinay mar labaad anigu waan jecelahay yahuudi oranaya ninkaas waa ninka koowaad ay wataan madaxay ku wataan maadaama uu ka soo jeedo dadka ugu badan caalamka islaami dadka suufiyo ka soo jeeda suufi waa laan dheer laakiin waa kufaar mushrik waa kuwa fara badan
shiicadu waa diideen in lagu darsato maadaama meesha waxaa ku jiraay ay yihiin dadkii khaliijka ma rabto ee shiicadu diina ilaasata iyaduba ma leh laakiin waxay iska dhigeen niman fiican oo ayagu sogan oo reer galbeedka yuhuud waxbaan ku darsanayno ayagu reer bari bay ku xiran yihin shiina iyo ruush bay ku xiran yihin waa diideen shiica iiraan waxba kuma darsan marka qolada labaad ma taqaanaan culimmada ka ah meeshaas aljadiidiya alma'suuniya almalcuniya kee waa ninkii u matalaya maxamed alciisa waa ninkii hadda tujinayey carafadii hadda lasoo dhaafay xaramka tujinaya dhankay jadiidiyadana waxay hogaaminayeen niman culimadii salafka nin sheeganaya oo la yidhaahdo maxamed alciisa ninkaas waa ninka hadda tujinayey carafo tujinayey wuxuu tegey meeshii lagu gubay yuhuuddii dagaalkii labaad ee adduunka xabsigii weynaa ee la ohan jiray shwaskof oo poland ku yaal 2 ragcadood buu ku tukaday oo jinaaso uu uga dhigayo yuhuudi lagu laayay meeshaas wuxuu garaacay boongaha ama kiniisadda kiristaanka lagu garaaco aadaankooda kale isagoo garaacaya saa u garaacaya la soo sawiraya wuxuu leeyahay waxaaba khalada buu leeyahay inaan meel gaara ku dheganaano waa in ummaddu isdhex gasho oo walaalowdo maxamed alciisa wixiisa ma qarsan banaanku la taagan yahay dowladdii sacuudiga weyneed ee xoogga lahaydna way la garab taaganta dowladdii way garab taagan tahay ninkii ka hadla ama juuqiraa mid la xiro culimmadii iyo mid la cayriye waa iyo mid aamusan oo iska gabanayo inta wiilkan yar hadda wiil Ameerikaanka iyo yuhuudda aad uga shaqeeya wadankii qabsaday hadda oo xoog leh ilaahay waxaan ka rajaynayaa san usii socon fursadiisu ilaahay taasaan ka baryaynaa subxaana wa tacaala hadda marka waa barnaamij xarameynkii baa la geyn lahaaya laakiin waa la keeni lahaaba barnaamijkaas maka iyo madiina weli lama keeni karo laakiin ninkii matalayey ayaaba jooga oo tusinaye mayada kaa maqanba idan waa dagaalka hadda warbaahinta oo dadkii lagu qancinayo markuu hadlayo wuxuu yidhaahdaa annagu haddaan muslimiin nahay bini aadanka bashariyadoo dhan kalgacal baanu haynaa yuhuuddu waa walaalaheen aan jecelnahay buu dhahaa nasaaradu waa walaalaheen aan jecelnahay waxaan isku khilaafsannahayna miis dushii baan ku xallinaynaa ma miis dushii lagu xallin karaa nin yidhi 3 ilaah baan caabudaya maya waa 2 diinood wey diinteennu ilaah keliya la caabudaya tiisana 3 ilaah baa la caabudaya kufaar wey ilaahay baa dhahayo kufaar wey colaadiya nacam haddaad wala siisaan gaalaad noqonaysaan yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakhiduu alyahuuda wanasaara awliyaa bacduhum awliyaau bacd waman yatawallahum minkum fa inahu minhum yuhuud iyo nasaara wala ha siinina ha jeclaanina ha soo dhawaysanina kii idin ka mida oo wala siiyana iyagu ka mid yaale dagaalkaa weyn baa hadda socda xoogguna de internetkii nin baa maamulaya iskale waa ninka fikirkaan wato wa ninka fikirkaan wato weeye dowladaha la maalgeliyaa hay-adaa shaqeeya hay-ado badanaa aan la arkayn waraad sataar hay-addu waa imanaysaa ayadoo xamar oo kala joogtaa wiil soomaaliya lasoo dirsanaya wiilka soomaaliya wuxuu ka hadlayaa wadaniyad iyo dib u heshiisiin iyo barnaamijyo wada laakiin hadafka taa waa ka ballaaran yahay hadafka taa waa ka ballaaran yahay waxaa weeye maxaa la diinta in la nuxur bixiyo islaamnimada dadka kusoo badanaysaa la yidhi soomaaliya dadku waxay qaadanayaan gabdhihii xijaabkii aada u qaataan raggu sunnadii baa ka muuqata dacwada tawxiidka wahaabiyada ayagu u yaqaanaane ayaa soo badanaysa tii suufiyada hoos u socota waa in lasoo nooleeyaa latan suufiyada masaajidada dib loo dhisay muqdisho laga dhisay yaa fangaraynaya dabka hoostiisa masaajid ku yaalla maaragtay aan suufiyada dhisatay intee la egyahay suufiyada hadduu lacag isu geeya ma dhisan karo ma dhisan karo beentiisu waa mid kalea turkiga u dhisay xamarweyne ku yaal masaajidkii weynaa ee suufiyada ee ku yaalay holodaag biyomalow turki baa dib u fangareeyay dowladda turkiga suufiyada idan waxaa lasoo kicinayaa dacwadii qabuuriyiinta bal inay kor usoo kacdo waa ki cilaadaa laakiin waa ki cilaadaa ilaahay baa ribuus saare hoos bay jirtaa laakiin waxaa suuq leh shaqaynaysa col badanna aan loo qabin ma'suuniya aljadiidiya oo dadka qaar ba salafiyiin moodayaan waana barnaamijka hadda socdo hadda ninka suufiga hadduu ku yidhaahdo oo reer galbeedka aan xiriir la samayno warna ka kacbaad dhihi yahuud iyo nasaara anaga hoostaa naga gelinay laakiin nin salafi saalix u nasab sheeganaya maalin dhawata midaan khadka ku doodayna waxaan ku weydiiyey oo taleefonkaan ku weydiiyey khadka waxaan soo sawirnay maxamed alciisa
maxamed ciise maxaa u taqaanaa baan ku yidhi waa ninkan oranaya yuhuud waa walaalahay markaasuu yidhi culamada muslimiinta ha u gafin waa nin weyne oo jadiidiyada ka mid a waa niman saasa marka waa niman aniga diinteeda hebel maxaa ku xiray buu yidhi diinteeda hebel maxaa ku xiray inaad gaalaysiiso diintaada waa ku xiranta inaad islaamisana waa walaalka inaad gaalaysiisana waa baraa'adii maxaa dhacay miyaana qof ku xirnayn walaalnimada iyo baraa'adu dadka waxbaa kaala dhexeeya wuu diiday inuu gaalaysiiyo oo isku wada xiran yahay hadda hala weydiiyo in khadka lagu weydiiyo warbaahinta fariintan aan u fari lahaa xasan kaafi axmed imaam hebel cabdicasiis mareexaani midka la yihahdo aada u qaylqayliya mid yaroo kale hadda asaga maalin dhowta raadiya kaada codka magaciisa iga maqan ya cabdiraxmaan dheer reer geesa ha kulligood jadiidiyo o dhan waxaan leeyahay maxamed al ciisa maxaa u taqaanaan annagu kufaar baan u naqaanaa ninka yidhi yahuudu waa walaalaheen jadiidiyo meelaad joogtaba carha ka soo jawaabaan oo ha dhahaan waa gaal hadday gaal dhahaan waa niman ragow hadda ka hor fariin baan u diray suufiyadii gurceel ka tagtay iyo dhuusamareeb iyo caabud waaq oo qabuuraha ku caabudaysay meesha la dhaho huurshe huurshe isugu timid huurshe qabrigii sheekh yuusuf direed ayaan khadka waxaan wataan ku weydiinay warbaahin baa jirta dagaalka warbaahintu waa ka socdaa xaq iyo baadilba waxaan weydiiyey laba wadaad oo jadiidyada ugu caansan waa xasan kaafi oo koonfurta jooga iyo barbaraawi oo jooga hargeysa waqooyiga waxaan khadka u dhignay labadii wadaad ee maamulayey waa maxamuud suufiga maxamuud la yidhaahdo oo yidhi anagu cibaadadan u nimid siyaasadii ugu sawir umaan iman qabriga cibaadadan u nimid oo dhahaya iyo kan kale oo oranaya waxaa la yidhaha magaciisa kii kale shaakir oo asna oranaya ereygu lahaa wuxuu ahaa isku soo darsad yidhi dantiina maantaoo kale buu yidhi umuurta maanta yani ladinka muraadyada isku soo darsada maanta ladinka aqbalaya weliba culimmadu waa aqbalayaan buu yidhi maytida aqbalaysa waa ajiibayaan waana maqlayaan buu yidhi labadoodiiba waxaan ku yidhi nimankaas waxay sameynayaan shirki taa waad qiraysaan laakiin ma mushrikiin ba iyaga iyo waxaa raacsan mise waa muslimiin oo aamusan mar dambe ayaa barbaraawi waxaan maqlay isagoo odhanaya mushrikiinta suufiyada qabuuriyaha war fiican wey aada buu fiican yahy marka inuu qabuuriyiinta mushrikiin ku tilmaamo waa sax waxaan mar labaad weydiinayaa muuse bixiyi saaxiibadiina ka warrama nimanka hargeyso jooga ee kitaabka ilaahay diiday ee dawaaqiidda aan u naqaan bal ayagana jawaab baan ka sugaya taana haddana midanan u diraya aan oranayo maxamed al ciisa wax ku sheega ilaa jacfar ninka la way gaalaysiiyaan kii suufiga ii sheeg xabiib aljacfari way gaalaysiiyaan waxaana si toosa u gaalaysiiyay sheikha xarameynka jooga ee dadaalaya wadaadka hadda duqoobiba waxaa la yidhaahdaa sheekh fawzan baa gaalaysiiyey uu yidhi ninkaas waa ka gaalamid hore ka gaalnimo badan yahy suufigaas waxaan rabaa maxamed al ciisa inay kasoo jawaabaan waa gaalkii haddii la gaalaysiin waayo sharcigu muxuu ka qabaa adaa ku gaaloobaya diinta ilahay saas haddaad abujahal gaalaysiin weydo adaa gaala haddaad james ninka la yidhaha george bush gaalaysiin weydo adaa gaalan ku noqonaya in marka taana waan u faraya oo hadda hawadan u marinaya warbaahintu marka dagaalka ay hayso xagga dacwada midka saddexaad waa talbiiskii waa talbiiska waxaa laga wadaa xaq iyo baadilka in la isku dheeho annagoo si fiican wax badan fahamku si naga yahay oo irjaa naga buuxo waana saxaabadii iyo nebiga waddadoodii aada marto kuna dheganaato midna ogaada ilaahay ma yeelayo subxaanahu wa tacaala qolo kalaa i lumisay oo fikir la igu shubay baan ku lumay ka lagaa yeeli maayo qur-aankii baa ku horyaal wa kayfa takfuruuna wa antum tutla calaykum aayaat ullahi wa fiikum rasuuluh ilahay baa yidhi see u gaaloobeysaan aayaadkii ilahay waa laydinku akrinayaa rasuulkiisi baa idin dhex jooga waa markuu nebigu noolaa laakiin maanta sunadii nebigan dhex taal see u gaaloobeysaan marka qiil ma leh alislaam ilaahay waxaan ka rajaynayaa ka baryayaa magacyadiisa sare ku baryayaa diintiisa inuu uheliyo tawxiidka inuu uheliyo aamanaa billahi waxdah wakafarna bishirki waطaaguut
آمنا بالله وحده وكفرنا بالشرك والطاغوت جزاكم الله خيرا. waxaan ugu talagalay idhaar diin waxa la yiraahdaa jira diintaada hadaadan cadeysan karin meesha ma joogi kartid taaquud ku taliyo marka inaan diinteena cadeysanayna cadeynaysa baraha bulshada dhigeen ilaahay baana ku mahadsan subhanahu wa ta'ala marka halka inoo joogto insha Allah ta'ala wa jazakumullahu khayran wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.